bulshada magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta bilaabay olole isxilqaan ah oo lagu soo celinayo bilicda magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Ololahan isxilqaanka ayaa ka bilaabtay bartamaha magaalada marka kaas oo qashin hareereeyay waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada marka iyadoo inta badan isxilqaankan uu ka socon doono guud ahaan magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose. xogayaha dawladda hoose ee degmada marka ayaa ku sugnaa goobta isxilqaanka uu ka socday waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii isxilqaanka ka qayb qaadanayay waxay codsadeen in la soo gaarsiiyo agab nadaafadeed maadaama xilligan magaalada ay u baahan tahay in qashinka laga qaado isla markaana loo baahan yahay in magaalada bilicdeeda dib loo soo celiyo. maanta magaalada dawladda hoose aan joogno oo weligoodna shaqay jiray oo xogayaha dawladda hoose asaasay iyo arrimaha bulshada oo asiga asiyaabo maanta aaskaan oo maanta shacabka isku shaqeeyo xogayaha dawladda hoose iska leh bulshadana waa bulshadiisa soo halgamay bulshadiisa wax isku asaasay oo halaha soo halgamay maanta waxaan ka codsanaynaa walaalahayn dawladda dhexe dawladda koonfur galbeed dawladda maamulka gudoomiyaha waafo gudoomiyaha nisa gudoomiyaha arrimaha bulshada waxaan ka codsanaynaa inaan shacabkan oo maanta xitaa oo xabs wax u shaqeysanaayeen inaan wax degdeg ah wax ay soo gaaraan oo balacda magaaladooda ay nadiifsanaayeen. waxaan sheegayaa dadka oo ama dawladda dhexe ama dawladda baydhabo koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa maanta gudoomiyaha xogayaha dawladda hoose waa joogaa nadaafadaasaan haynaa carrahanaan taala u jeedeen cabirka aan fiirida waa qof joogiis waaye marka waxaan rabnaa gaarin ma haysano wax ma haysano wax aan hayna male badiil xuma xaafadda ka soo qaateen oo jajabaya naftiisa waxaan rabnaa inay garab siiyaan dadweynaha shacabka dadka deegaanka ah oo degmo marka ah inay waxay u qabtaan wixii tabartooda ay u qabtaan ay xasdan macnaha hay'ada ahaato wax kasta ahaado in waxay u qabtaan oo ujeedeen fasaara masajir mashiibi horteeda waay dowladda hoose dhan waay waa meeshii bilacd magaalada aheedo. xogayaha dawladda hoose ee degmada marka maxamed cali cusmaan yariisow ayaa ugu baaqay bulshada magaalada marka inay ka shaqeeyaan soo celinta bilicda magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. qof walba ayuu ugu baaqay in gurigiisa hortiisa uu ka shaqeeyo sidii uu qashinka kaga nadiifin lahaa. waxaad arkayseen hooyooyinka howlaha ay wadaan oo isxilqaan ah marka waad arkayseen loorar ayay waxay ku qaadayaan carro badiilo xaafadaha ay soo qaateen marka waxay ku shaqaynayaan isxilqaan waxaa ka go'an inay magaaladooda bilcadeeda maadaama amnigii boqol as yahay maamulkii wada shaqayn ay ka dhaxayso marka ayagana hooyooyinka anigoo xogayaha dawladda hoose ayaa nadaafadii ka mas'uul ah hadday bilacda magaalada ahaaleed dhismeeda wax walba inaan bilacda magaalada soo bixiyo ayaa iga go'an anoo kaashanaya hooyooyinka dhalinyarada odayaasha marka waxaan leeyahay marka hadalka ma badanaayo anigoo ku hadlaayo magaca dawladda hoose ee degmada marka waxaan leeyahay maamulka koonfur galbeed khaas ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka codsanaa in ay noo keenaan badiilo iyo wixii nadaafadda lagu samayn lahaa hadday ahaad leed farkeetooyin hadday ahaad leed gaarigacamo hadday ahaad leed badiilo hadday ahaad leed mootooyin ama baabuur aan ku qaadanno qashinka marka degmadan waa degmo ballaaran dhibaatooyin badan soo martay marka bilicdeeda inaan soo saarno ka xogeeya dawlad ahaan ayaa iga go'an marka anoo kaashanaya maamulkayga gudoomiyaha ku-xigeenada ka wakiil ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay khaasaan haddana dawladda dhexe mudane farmaajo ra'iisul wasaare cali khayre iyo wasiirada iyo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda dhexe waxaan leeyahay ayagana hanalaga caawiyo dhinaca nadaafadda meel aan nadaafad ka jirin cuduraa ka dhalanayo waad ogtihiin cudurka jira hadda ayadoo saas ay tahay ayaa hooyooyinkii ay isku xilqaameen inay naga caawiyaan dhinaca nadaafadda. aweys wamin xasan aweys okay raadiyaha iyo telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada marka.